maamulka sare ee telefishinka badda cas ayaa waxa ay maanta qada sharaf ugu sameeyeen magaalada Hargeysa fanaaniin iyo xildhibaano ka soo jeeda dalka Djibouti ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay tafatiraha telefishinka badda cas Cabdifataax Mursal oo xildhibaanadan iyo fanaaniintani ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa telefishinka badda cas iyo maamulkiisa waxa sharaf iyo qadarin u ah inuu halkan maanta qada sharaf ku maamusay ama ugu sameeyay xubno nagu culus runtii Soomaalidana in badan oo kamid ah qaarkood ku culus yihiin oo reer Djibouti ah oo Hargeysa hadda ku sugan waxaan noo sharafay in Xabiibe Balbalaaf oo ah fanaanad weyn oo Soomaaliyeed oo Soomaalidu aad u taqaano ay nala joogto waxa kale oo noo sharafay in nala joogto xildhibaan Isbaan oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Djibouti waxaan leenahay ku soo dhawaada Hargeysa waxaan ku maamuusaynaa inaan ku soo dhaweeyno Hargeysa waxa kale oo nala joogta gudoomiyihii jaaliyadda Jamhuuriyadda Djibouti ee Soomaaliland ku dhaqan Maryan Xariir waxaan la fadhiyo diblomaasi ka tirsan dawladda Itoobiya dhamaantiin waan soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay ku soo dhawaada Hargeysa geestooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay oo ka mahadnaqay soo dhaweentani fanaaniintani iyo xildhibaanadani intuu meeshan isku keenay hoteelka weyn ee Djibouti ee laga casaalna waan salaamayaa agaasimaha leh waxaan salaamayaa oo kale walaalkay Cabdifataax oo ka ah agaasime Cabdirashiid sanadkeenan badda cas ma sha Allah waxaan kala salaamayaa gudoomiyaha jaaliyadda Djibouti aniga magacayga ku salaamayo iyo magaca Djibouti waxaan halka ka salaamayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Gelle iyo Khadra Maxamuud Xayd hooyo Khadra Maxamuud Xayd iyo dawladdeena Djibouti oo dhan baan salaamayaa ma sha Allah waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan baan leeyahay horta sanad guurina soo dhaafay ma sha Allah gidigin reer Djibouti oo dhan waan salaamayaa maarka Djiboutina waan salaamayaa iyadana walaashay Faadimo Cusmaan Cawaale aan salaamayaa ma sha Allah madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo labadiisa marwo waxaan salaamayaa dawladdiisa madaxweyne ku xigeenka iyo dawladdiisa gouvernementka iyo dawladdiisa hoose xildhibaanada iyo labada gudoomiye maanta anagoo joogna maxay ahayd hoteelka la yiraahdo lag casal anagoo joogna waxa nagu casuumadeeyay agaasimaha badda cas ayaa nagu casuumadeeyay uu ku mahadsan yahay casuumada weyn noo fidiyay anaguna waan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo salaamayaa Muuse Biixi Cabdi iyo marwadiisaan salaamayaa marka de Hargeysa waa meel qabow waa meel qurux badan si fiican wala noogu soo dhaweeyay barnaamij fiican waan ka dhignay waa ka de ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda reer Djibouti ee ku sugan Somaliland Marwo Shukri Xariir Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkan waxaan ka salaamayaa oo ugu mahad celinayaa agaasimaha maxay ahaydey badda cas oo halkaan nagu soo macsuumaysi noo fidiyay casuumad weyn oo wanaagsan hoteelka lagcasa ayaan horta mahad weyn u celinayaa iyo intii nala socotay kala shaqeynaysay casuumada uu noo fidiyay waxa kale oo salaamayaa dadka iyaga reer Djibouti meel wala joogaan salaan culus oo kalgacal ayaan ku salaamayaa madaxweynaha iyaga waan salaamayaa Ismaaciil Cumar waxa kale oo salaamayaa Khadra Maxamuud Xayd marwadiisa waxaan salaamayaa dhammaan reer Djibouti meel laaliye meel joogaan iyagana waan salaamayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo labadiisa marwo iyagana salaam weyn baan u fidinayaa iyo dhammaan dadka Hargeysa ku nool reer Hargeysa Cabdiljabaar Maxamed Xuseen wararka telefishinka Real Hargeysa